toddoba sababood oo aanad weligaa taajir ku noqonayn ama si ka hortaagan taajir noqoshada. ka sokow kala duwanaanshaha jinsiga, bini'aadamku wuxuu leeyahay kala duwanaansho kale oo loo yaqaan dabaqado ama heerar. dabaqadahaasi waxay u qaybsamaan saddex. waa ta koobaade waa kuwo ku dhex nool dabaqada hoose oo 100% faqri ah. waa ta labaade waa kuwo ku dhex nool dabaqada sare oo ah tujaarta. waa ta saddexaade waa kuwo ku nool dabaqada dhexe. labada dabaqadood ee kalena isku xidha oo caadiyan qofka dabaqada dhexe ku nool waxa macquul ah inuu hoose ka soo dalacay ama uu dabaqada sare ka soo dhacay. haddaba daawade muuqaalkan waxaan kuugula wadaagayaa 7 sababood oo aanad weligaa taajir ku noqonayn ee daawasho wacan. lambar 1 uma malaynaysid inay lacagtu muhiim u tahay nolosha. badanaa waxaa dhigaheena ku soo dhaca dad leh hadallo ay ka mid yihiin lacagtu wax uma tarto, waxba igalama maqna iyo wixii la mid ah. dadka hadalladaas lehna 100% waa fuqaro. ma lihin lacagtu wax kasta iyada ka qiimo badan, balse waa shay aad iyo aad muhiim ugu ah nolosha qofka. lacagtu waa waxa dhaqaajiya caalamkan aynu ku noolnahay. waa shayga aad ku garab istaagi karto qof dhiban. waa shayga qiimaha ku yeelaya ee weliba iino badan oo aad leedahay ku qarinaya. soomaaliduna waa ta ugu heestay lacagay dadka kala labeeyaay liitaa gargaaray. lambar 2 waxaad aaminsantay in qof wax bartay uu taajir noqon karo. iskuulka laguma barto siraha taajir ku noqoshada oo badanaa dadka dunidan horeyso iyo dambeysaba tujaarta ka soo noqday ama hantida tabcaday waa dad aan waxbarashadii aasaasiga ahayd soo marin. inaad xisaabta, sayniska ama juqraafiga 100% keentaa macnaheedu ma aha waxaad xaq u leedahay inaad taajir noqoto ama mustaqbalkaagu 100% guuleysanayo. laakiin taajirnimadu waa wax karti, ka fikir, dadaal iyo han sare ku timaada. lambar 3 waalidkaagu weligood kumay fikirin lacag samayn, aragtina kama haystaan siday u shaqayso lacagtu. inan kastaaba waxay jecel yihiin inay ka dhashaan qoys lacag leh, waayo dhalinyaronimada ayaaba baahi ka samaysan. haddii aad haysato waalid hantiilo ah, xataa haddii uu gacan adagiyey, dadka kale ayaad magaca iyo maamuuska waalidkaaga wax kaga cunaysaa. ogowna hadduu waalidkaa yahay midaan ku fikirin siduu hanti u samayn lahaa, inaad caqabado badan kala kulmayso. ha uguba yaraato inay kula fahmi waayaan dhankaada wax u wado. taasuna waxay faashil ka dhigi kartaa isku dayadaada iyo geedi socodka mustaqbalkaaga. lambar 4 weligaa kumaad fikirin sidaad u samayn lahayd lacag ka baxsan mushaharkaaga shaqada. waxaa jira dad 10 sano shaqaynaya, mushaharkooduna bisha oo dhammaan uu siiba meelaysan yahay, waxna aanay dheereen inay ka dhinmaan mooyee. haddii ay rabaan inay guursadaan ama shay qiimo leh iibsadaanna u baahan qacan qabasho qof kale. haddaba dadkaasi waa qaar aaminay inay ku tiirsanaadaan mushahar ay u subax ka lahaan, weligoodna heer kama gaadhayaan nolosha. isku day inaad samayso lacag ka baxsan mushaharkaaga si aad ugu kabto baahiyahaaga. iskuna day inaad barato habka lacag looga sameeyo. lambar 5 ma dareensanid inay guud ahaan miidiyaha iyo kuwa waxaysiiya ay rabaan inay ku isticmaalaan. waxaa jira dad badan oo ku xidhan xayeysiismaha miidiyaha oo haddii ay arkaan shay la xayeysiinayo xiiseynaya inay durba soo iibsadaan, sida mobile cusub, kombiyuutar cusub, dhar cusub, cunto iyo wixii la mid ah. lacagta yaree soo gashana israaf ku sameeya. haddii aad ka mid tahay dadka dhaqankaas leh, ogow weligaa taajir noqon maysid. lambar 6 waxaad sas ka qabtaa ama aad necab tahay dadka hantiilayaasha ah. inaad nabcaato dadka lacagta leh waa nooc ka mid ah faqriga, waayo dadka aad ka agdhowdahay ayaa ah dad daciif ah oo aan lahayn karti ay kula tartamaan dadka hantida tabcaday, dabeecadna ka dhigtay cadow ku cunay ama ku ciideeyey oo intaa dhaliilaya dadka tujaarta ah. haddii aad aragto qof si xun oo kibir ku jiro hantidiisa u isticmaalaya, ha wada nicin hantiilayaasha ee ku ilow kuwooda wanaagga iyo caawinta ummadda ku bixinaya hantidooda. lambar 7 weli xil iskamaad saarin hantidii aad mustaqbalka tabcan lahayd. 90% dadku xil iskama saaraan aayahooda iyo heerka nololeed ay ubadkoodu ku noolaan lahaayeen. mustaqbalkaaga adaa iska leh.
ee mas-uuliyad iska saar hana noqon mid had iyo goor u cawdo dadka la midka ah u samee waqti aad kaga fikirto aayahaaga dambe juhdi iyo dadaal geli dariiqaaga guusha digniin kugulama talinayo inaad hanti ku raadiso sifo xaaraan ah sida boob dhac tuuganimo iyo wixii la mid ah